deegaanka Faliidyaale ee gobolka Sool waxa ku shiraya inta badan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee ku jira maamulka Puntland waxayna cabasho ka qabaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ay ku sheegeen uu hakraday isla markaasina uu ka gaabiyay dagaal ka dhan Soomaaliland 7 cisho oo kaliya ayaa ka soo wareegtay markii tukaraqay la wareegtay Soomaaliland markaasi waxa abuurmatay xiisad dagaal oo u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland haddaba shacabka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay isla markaasina aragtiyadooda ka dhiibtay aragtida ay ka aaminsan yihiin xildhibaanada iyo wasiirada ku shiraya deegaanka Faliidyaale ee gobolka Sool taa kadib aragtideeda haddaan ka dhiibto xildhibaanadan ku shiraya magaalada Faliidyaale iyo wasiiradan dhulbahante ee ka soo jeeda deegaanada SSC maanta u shiraya isugu yimi in ay aayahooda ka tashadaan oo ay ka tashadaan maamulkii ay inta badan oo wadaagta la lahaayeen ee Puntland oo maanta ay ka soo diga rogtaan oo iyagu halka iyagu oo madax bannaan ay iyagu aragtidooda iyo oraahdooda isku dhaafsadaan anigu aragti ahaan horta awalba anigu horaan u arkay Puntland inaysan dan u wadin dadka deegaanadan ku dhaqan SSC qoliyaha ku shiraya Faliidyaale ee deegaanka kan ah ee xildhibaanada u ah Puntland waxaan ka aaminsanahay totally inay khaldan yihiin waxay ku qaldan yihiin dagaal iyo qalaasay fadqalalo hadeer in la abuuro wax dani kuma jirto dagaalkuna waa mid ay iyagu dantooda ku wataan mid ay deegaanka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ugu heelinayaan ma aha waa mid ay danooda iyagu ku wataan ama dad kale ay ku maamulayaan ama caasimada kale ugu shaqeynayaan ma aha dan ay dadkeena u wadaan deegaankeena u wadaan ma aha waa dan ay iyagu leeyihiin waxa leeyahay muxuu ahaa habar alla barid baalimooladeeda ka aragtay marka danahooda iyo xildhibaanimadooda garow way ku difaacanayaan mid ay danahan dadka ka wadaan ama u waxaynayaan ma aha waxaan ku suganahay gobolka Sool haddaan ra'yiga ka dhiibto xildhibaanada iyo wasiirada ku shiraya gobolka meesha Faliidyaale horta weligeed waa la shiri jiray oo shirkan wuxuu ka mid yahay shirarkii hore ee la qaban jiray oo haddana intii waqti lagu bixiyo haddana wax harbacad lagu dhisay ahaa marka waxaan leeyahay shirkaas hadduu shir wanaagsan noqdona وما شاء الله وسود ويننا هدو شركة هرا نقلنا ده واحد حاجة تشير أول هرا الله برتو عادة هيدا لشركة جمتي مال السوقيمين ده لا بحكي لكن حرر لها وحكى صارت المسير كضدك يدلك waxaan u arkaa inuu dagaalkaasi Puntland iyo Somaliland ciidanka Puntland deyn badan baa la sheegay dagaal bay soo qaadayaan iyo halkan waxba ka dhacay iyo marka dadka reer Laascaanood waxay dhahan markaad wareysatid halka qorraxda un baa ka soo baxda marka ciidanka Puntland hadii aysan dagaalka soo qaadayn waxa weeye deena iska daayaan ma anu fili karaa ciidanka Somaliland waxa leeyahay meesha dhibaatadii hore u geysteen iskaga baxday deegaanka la idinka rabo idinku waa ogtihiin dad lama khasbeen ciyaalkooda biilkooda ha raadsadeen si wacan ha u raadsadeen cidna anaga yeena nagu dirin cidna yeena xabad gelin waxa weeye 10 sano ku dhowdhoway hadda been noo sheegayeen ay lahaayeen maalin kasta halkan aan imanaynaa iyo 70 gaari baa halkan taagan waxaas waa been dumarkii ciyaalka loogu sheekeynayaa iyaguna waxa soo dhow xilligii koorankii dawladda Cabdiweli Cali Gaas maamulkiisa uu dhamaan lahaa waxa la rabaa wixii ma garanaysaa campaign-ka lagu gali lahaa inta Cabdiweli Cali Gaas waana lahaa markii uu imanayay magaalada Laascaanood baan qabsanayaa iyo Sool Sanaag iyo Cayn baan xoreynaya Xamse Raadeeye Universal TV Laascaanood